السلام عليكم. shan qodob oo ku tusinayo inaad wadada guusha hayso xitaa haddaadan ogeyn qofka marxalad wuxuu gaaraa uu bislaado kana barto qaladaadkiisa iyo qaniyada nolosha taasoo keenayso inuu isbedelo macquulna tahay in isbedelkaas qofka uuna dareemaynin shantan arrimood haddaad leedahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in aad wadada guusha hayso inaad isbedelayso inaad ku noolaan doonto nolol kuu qalanto nolosha aad rajaynayso oo aad mar walba niyadda ku hayso qodobka koowaad waxaad leedahay ujeed cad maalinta aad ogaato waxa aad doonayso waxa aad rabta in aad xaqiijiso maalintaas ayaad wadada guusha cagta saartay wixii qofka uu hadaf ka dhigto uu bartilmaameed ka dhigto uu xaqiijiyaa xilliyada qaar waxaa la dhahaa afcaasha aan samayno waxa aan samaynayno waa wixii shalay usbuucii la soo dhaafay bishii ka horreysay sanadkii ka sii horreeyay wixii aan ku taamaynay wixii aan rabnay in aan xaqiijinno weeye waxa aan maanta xaqiijinayno sidaas darteed haddii aad ogaato ujeedkaada hadafkaada aad calaamadayso waxaad haysaa waddadii guusha qodobka labaad ma fiirisid in badan dhaleecaynta laguu jeediyo waxa ay dadka kaa sheegayaan marxalad waxaa jirta qofka uu istaago gacmaha isi saarto keliya ayadoo hal dhaleecayna loo jeediyey inuuna aqbali karin inuu aad u xanaaqayo uuna jeclayn in la dhaleeceeyo qofkaas weli ma bislaanin laakiin qofka bislaaday nolosha ay ruugtay marxalad wuxuu gaarayaa dan uu ka gelin dhaleecaynta loo jeedinayo keliya uu kala soo baxayo wax anfacayo dhaleecayntan uu fiiriyo haddii ay sax tahay waxyaabaha ka qaldan uu iska saxayo laakiin uuna dan kale kasii gelaynin tusaale yar waxaa jiro nin dhallinyaro ah oo Masri lagu magacaabo Khaliil Comedy oo inta badan masaarida internetka isticmaasho Facebooka, Twitterka, YouTubeka ay aad u yaqaanaan aadna uga hadlaan ninkan wuxuu ku soo caanbaxay inuu yahay qof la necab yahay sabab wuxuu sheegaa in uu yahay majaajilayste ama comedian oo uu sheego waxyaabo lagu qoslo laakiin waxyaabaha uu sheego waa wax lagu tilmaami karo yacni haba yaraatay wax aan lagu qoslaynin oo haddii YouTube-ka uu video soo geliyo waxa laga yaabaa 10,000 oo qof haday daawadaan 10 kaba inay dislike saaraan kilibkan yarka Khaliil Comedy xitaa haddaadan carabi fahmaynin waad qiyaasi kartaa in ayna ahayn wax lagu qoslo haba yaraatee اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده حلقه ولا قصه تن تن يا ترى حمو بيكا ولا لسه ما حموهوش تنتربوكا توكا توكا تنتربيكا تيكا تيكا تنترارن تن وربي يكون ميزنا بميزة الرجولة والنفس عزيزة يا ترى مجدي شطة مجدي بالشطة ولا بالشطة والليمون تنترارن تن تنتربوكا توكا توكا تنترارن تن كومنتيادنا dhammaantood ay caayayaan laakiin danka ma galo wuu iska qoslaa wuu soo geliyaa YouTube-ka dad ku qorto kale arrad ala Khaliil Comedy waxaad arkaysaa kumanaan qof oo u jawaabayso sid waxyaabaha uu u arka in ay qosol tahay uu sheeg waxa kamid ah tusaalahan bal ka waran hadaan maanta dad ku imaadaan ku dhaho waxaan ku hayaa wax lagu qoslo haya Umar ii sheeg oo aan ku dhaho maanta guriganaga markaan ka soo baxay waxaan arkay lax meel taagan ha kabta baad ii siiban wax kale ma lahan waxyaabaha uu sheeg waa sidaas oo kale ujeedka ninkan u soo qaadanay waxa weeye marka koobaad Facebook iyo Twitter xisaabkiisa ciwaankiisa waxay saareen calaamada saxda ee dadka caanka lagu yaqaano marka kale heer wuxuu gaaray telefishinada iyo barnaamijyada lagu marti qaado heer xitaa wadamada khaliijka mar wuxuu joogay wadanka Kuwait waxa la gudoonsiyay lacag badan barnaamij ayaa lagu wareysanayay ninkii iska beeraleyda ahaa ee beeraleyda Masar ahaa hotel 5 star ah la dejiyay kadibna waxa la soo fariisiyay telefishin لبنان بوآدا وحو آدا سعودية وحاوري ستي MBC ساسوي تهي وحا او شيكا يوح لغو قصل هبا يراتي مالها لكن دن كمو قالو هير وحو قاري او لعاق بدن هلو عان نقضو لكن إن كستوي تهي عان نمو آنن إيجابي هين سلبية كلية ننكاس خليل كوميدي وحان تصالا وقصوقاتي إن دالعين تلو جيديناي آدن دن كقلين saddexaad dadku way ku ixtiraamaan waxaana lagu arkaa qudwa qof lagu dayan karo qof ku dayasho mudan dadka ayagoo qiimeynayo raadadka wanaagsan saamaynta aad bulshada ku dhex leedahay haddii ay dadka aad ku ixtiraamaan
qofna uu ku arko inaad qudwa tahay lagu daydo ayadana waa tilmaan aad u wanaagsan oo ku tusinayso in aad waddada guusha hayso. afaraad, ma rajo xumid xitaa haddii aad ku jirto xaalad adag, xaalad aanan wanaagsanayn markaas ayadee, sababtoo ah quusta iyo rajada cagsi ayay isku yihiin. qofka mar kasta uu quusto noloshiisu waxay ahaanaysaa mid madow, mid naxdin iyo murugo iyo rafaad badan. maalinta ay rajada kaa dhunto aad rajo weydo, maalintaas ayaad istaagtay. nin ayaa yidhi nolosheenna haddayba rajo lahaan lahayn oo qofka uuna wax rajaynaynin, dhinac loo raaca maba lahayn. waxaa jirta oraah carbeed oo leh maa adyaqa alcaysha lowlaa fusxatu alamali. noloshu cariiri badana, nolosha maxaa ka cariiri badan haddii ayna lahaan lahayn fasaaxada amalka. bannaan fasiixa oo kale ayuu ka dhigan yahay. haddiina rajo jirin wax jirta ma lahan, noloshaadu way istaagaysaa. marka qofka mar kasta uu wax rajaynayo, iska niyadsan yahay, waddada guusha ayuu sidoo kale cagta saaray ama uu hayaa. shanaad, uma aragtid in ay malaa'ig yihiin. maxaan ula jeednaa? dadka guulaha waaweyn xaqiijiyey, shirkadaha waaweyn, markaad aragto ama ay niyaddaada soo galaan, haddii aad isu aragto ama aad u aragto in ay yihiin bani aadam kula mide oo aadan ka aaminsanayn in ay yihiin wax weyn, dad kaa caqli badan, dad aanan kula mid ahayn, haddaad ka aaminsan tahay oo aad isu aragtay inaad adiga buurta hoosteeda taagan tahay, waa dhinaca caqliga ee bani aadamnimada, ayagana dusha ugu korraysa ay saaran yihiin, weligaa halkaada ma dhaafaysid. laakiin markii aad aragto qalab aad la yaabto, kumbuyuutar cajiiba, gaari cajiiba, haddii aad niyaddaada islamarkiiba ay soo gelayso bini aadan ila mid aha same, anigana waan samayn karaa. laakiin sida inta badan soomaalida aaminsan yihiin in jabaanayska ay yihiin dad la yaab leh, naga duwan, naga caqli badan, shiinayska sidoo kale, waxaan shiinaa sameeyey, waa dad saase. haddaad aaminsan tahay yacni xaaladdaadu ma wanaagsano. laakiin haddaad aaminsan tahay in duruufo gooni ay idiin dhexeeyaan keliya, laakiin sida ay xaqiijiyeen waxa ay sameeyeen aad samayn karto, maalinkaas sidoo kale waddada guusha ayaad haysaa. shantan qodob ayaan jeclaaday inaan idinla wadaaga maanta. fadlan haddaadan kanaalka weli ku soo biirin laakiin muuqaalkan aad daawanayso, riix meesha ay ku qoran tahay subscribe muuqaalka hoostiisa si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeyo ee aan kanaalka soo gelinno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.